السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى ما امتحان قادنا 10 كيس ديتني كواد كتاب كيها العربية بين يديك جزء كيسي لباد وحدة أنفسه جني وحوية وحدة أفرية طمانات 10 كعوان كيس وحوية هي أسباب الجريمة وحيابها كينا دنبيادة أينو هل كان كغاها ضيناه أسباب الجريمة وسببها وحيابها كينا دنوبتا إيا دنبيادة halkan waxaa ku sheekaysanaya laba wiil mid waxaa la dhahaa Salaax midna waxaa la dhahaa Mas'uud Salaax ba hadalka bilaabay wuxuu yiri hunaaka waxaa halkaas ah oo wadanka ka jira ama ba adduunyada ka jira su'aal oo yashqalu mashquulinaya baali qalbigayga kathiran in fara badan su'aal waxaa jirta in badan waxa weeye maskaxdayda ku soo noqnoqonaysa oo qalbigayga mashquulinaysa ayaa jirta su'aashaasi waxay tahay لماذا زادت محي كردي نسبة الجريمة هيركا يوحوية نسبة يسامجة دنوبت محي كردي نسبة الجريمة هيركا ينسبة جريمة أيلاده هاي محي كردي في العالم الدنيا محي كردي مسعود باوحو يري هناك هلك صحاء أسباب سبب كثيرة فربضا منها وحاكم ذا أن القوانين حراركو أصبحت إني نقطي غير رادعة مدوحوية عن عبسي قلنا هنين داتكي أو أن لقبقى هنين أما با أن وحبا ريبا هنين أو قفكي أن وحبك ريبا هنين أو ومسنك عبسنا هنين فالمجرم قفكي دنبيلها يسجن والحريا سنوات دور سنوات بالحريا ثم يخرج صباحيا ليرتكب جرائم أخرى سيو أكرا أو أفولا أما أوسمايو دنبيا كالي أو أكبر كوين ليرتكب وسمين يا أو فولا يارده جرائم دنبيا أخرى كالي أو أكبر كوين دنبيا هرو قلي مسعود بهذا الكغاتو حولو حاجرة صوابا فربضان باكينيا إن نسبة يهيرك يحدق أيلاده هاي جريمة إنay badato adduunyada ay ku badato sabab badan baa keenay sababaha waxaa kamid ah buu yiri in xeerarkii dadku ay degsadeen ay tahay kuwa aan laga baqahaynin qofkii dambiilaha ahaa waa la xirayaa dhowr sanadood ayaa la xirayaa kadibna waa la soo deynayaa markaas wuxuu sameeyaa dambigii uu sameeyay dambi ka weyn ayuu gelayaa waayo xuduudii ay shariicadu u sameysay lama marin qofkaas xeerar iyo qawaaniin la degsaday ayaa waxa weeye la raacay زياد بهذا القطع وحولي لقد وضع ودجي على الإسلام دين الإسلام هاي دجسي الحدود حدود أي دجسي حدود أي ودجسي يعقاب يعقوبين أي ودجسي قفك دنبي لها أها وايه لحماية المجتمع سي الله إلى ليبلشدي قال الله تعالى إلهي باوحولي ولكم وحايد كسونا في القصاص قصاصتي يا أرجوسي قفكي قف وحوية وحكو سمي إن لوجا أرجو حياة النور الآيات كسونا تي يا أولي الألباب ذاتك عقلك أو صحيحك ولعلكم تتقون سياد ألا أوجا بغدان أو أوجا عبستان زياد باورك قاته وحولي وحايد دجسي دين الإسلام كحدود أي دجسي يا عقابضه حد كالزنا حد سرقة قفكي وحوي زنا كدعة حد بودة جسي قفكي سرقة سماي حد بودة جسي مركا حدودي وعين لراعه حدود داس وحال لو ترى إن بالشدة لو إلاليه إلهي بان القرآن كسبحوكو يري وحايدين كسوغان قصاصتي يا أرغوسي قفكي قف وحكو سماي إن لوغا أرغويو هادي وديلو إن لو ديلو hadduu gacan ka gooyo in gacan laga gooyo nolol baa idin ku sugan dadka aqliga u saaxiibka ah marka qofkii hadii wuxuu sameeyay wax la mida lagu sameeyo qof waliba waa cabsanaya laakiin qofku haduu og yahay haduu qof dilo in bariya inta la xidho la iska sii deynayo waxa weeye jama cabsanayo hadii la dhoo gacan baad ninka gooysay adna gacan baa laga gooynaya waa cabsanaya qof kastaaba صلاح بهذا الكقاتو حولي يؤيد وحا حوجين ذلك أرنتا أن الجريمة
dembiyadii tasdaadu way kordhayaan. goorma ayay kordhayaan? kullamaa amina mar kasta oo uu badbaado almujrimu qofkii dembiilaha ahaa alciqaaba ciqaab uu ka badbaado. ziyaad baa hadalkii qaato wuxuu yidhi wa min al asbaabi sababaha waxaa ka mida cindii agtayda waxyaabaha waxa weeye keenaya in dunuubtu ay dunida ay ku faafto. wa min al asbaabi sababihii waxaa ka mida buu yidhi ziyaad cindii agtayda anna wasaa'il aliclaam in warbaahintu tushajicu ay dhiiri gelinayso cala aljariimati dembigii ay dhiiri gelinaysa yadu. oo see ayay warbaahintu dembigu u dhiirigelinaysaa? waxay u dhiirigelinaysaa yadii ayaa buunbuuninaysa oo qofkii dadlaaya waxay leedahay halkaas waxa weeye nin baa dadlaaya oo waxa weeye nin geesiya weye. dadka qaarkood waa ay buunbuuninayaan, waxay leeyihiin waa nin geesiya dad buu soo laayay. qaarkood filmaan bay ka samaynayaanoo waxay leeyihiin ninkii waxada waxa weeye waa nin caqli badan, qaabkaas wuxuu xaday, raganimo ayuu sameeyey. mascuud baa hadalka qaatay wuxuu yidhi waqad yakuunu waxaa laga yaabaa inuu halkaas uu yahay waqad yakuunu waxaa laga yaabaa min al asbaabi sababihi inuu ka mid yahay intishaaru alfaqri faqriga faafidiisa iyo baahidda uu faqrigu baahay iyo waljuuci gaajadii ay baaheen filmujtamaci bulshadii ay ku baaheen oo ay ku faafeen. waxaa laga yaabaa sababaha inay ka mid tahay jariimadu inay badato, faqrigii ayaa baahayo waxa weeye qofkii markii uu baahdo inuu waxado waxa weeye way u fududaanaysaa oo gaajo ayaabaa laga yaabaa inay u geyso. salaax baa hadalka qaato wuxuu yidhi sadaqta run baad sheegtay. fal amnu nabadgelyada iyo walqidaa'u cuntada iyo cuntaysiintu min ahami nicami nimcooyinka kuwa ugu muhiimsan ayay ka mid yihiin. qaala tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi falyacbuduu ha caabudeen rabba haada albeyt rabbiga iskale gurigan ha caabudeen waa kacbadii weeye alladii allahaasoo abcamahum ka quudiyey oo quudiyey min juucin gaajo xaggeeda ka quudiyey wa aamanahum ka badbaadiyey min khawfin cabsi ka badbaadiyey. ziyaad baa hadalka qaata wuxuu yidhi yajib waxaa waajib ah an natacaawana inaynu iskaalmaysanno jamiican dhammaanteen. maxaan iska kaalmaysanaynaa? calaa xifdi alamni nabadgelyada ilaalinteeda inaynu iska kaalmaysanno ayaa waajib ah. fa xifdu lamni nabadgelyada oo la ilaaliyo laysa ma ahaanin mas-uuliyata rijaali alamn mas-uuliyad iyo xil saaran ragga nabadgelyada waxdahum keligood. waayahay mas-uuliyad iyo xil saaran ma aha rijaalulamn. rijaalulamni waxa weeye waa booliska ayaa la dhahaa rijaalulamn. booliska iyo shurdada keligood xil saaran ma aha nabadgelyada oo la ilaaliyo. wa inamaa mas-uuliyatu kulli muwaatinin waa mas-uuliyad iyo xil saaran qof kasta oo muwaatina oo waddanka u dhashay amaba degan. casharkeennu intaas ayuu ku egyahay. casharka cashar la mida intaan ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.